رمضان كريم. سامحوني قبل رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كده حال هوايات كلا ساعتين براها بالشدة قيبت يوتيوب برنامج كوحيدن كجا إيمانا يا قاهرة مجال مدح لدلك مصر. ما انت هدو إلهي كرار نقض مشروعين وحو نقضنا يا زبيب فوجدين زبيب كدراي زبيب waxaan baranaynaa sida looga dhigo casiir. wuxuu u fiican yahay dhammaan xubnaha jirka. markaan ku dhahayo dhammaan waxa waaye in one package asaaska mushkiladda meesha jirka ee uga soo bilaabato ayuu daboolayaa uu si toos ah ugu fiican yahay. waa halkii meeshaas waa dheefshiidka ama qoloonka qof bas u yaqaano dheefshiidka. waxa waaye mushkiladoo dhan waxay ka bilaabataa dheefshiidka kadib qoloonka u gudbinaysaa kadib xubnaha kale ee jirka ayay damage gareynayaan yani ama ay baabi'inayaan. marka waa antioxidant yani wuxuu ka hortagayaa hawada qurmaysa ee qoloonka sameeya ama sunta qoloonka sameeya qofba suu u yaqaano siduu u dili lahaa ayuu ku dadaalaa. wuxuuna koriyaa dhiigga cad. dhiigga cad uu koriyaa aad iyo aad u koriyaa zabiibka. unugyada jirka difaacana aad iyo aad ayuu u taageeraa because unugyadaas waxay ku nool yihiin dhiigga cad. zabiibka waxaa kaloo laga helaa faa'iidooyin badana laga helaa. waxaa laga helaa wax lagu qurxiyaa macmacaanka lagu sameeyaa raashinka oo caadiga ama maalixa loo yaqaana lagu dhex kariyaa yani waxyaabo badan uu sameeyaa akiid kala nooc ah maanta. laakiin waa asagoo casiir ah hadduu ilaahay karaala noqdo. dowlado badan aan tegay ma ku arkin casiir zabiib oo moolgareysan oo sida casiirka caadiga loo cabaayo. laakiin waxaan ku arkay iyagoo isticmaalayaan traditional way yani maxaan ku dhahaa dhaqameed wax dhaqameed ayagoo isticmaalaya ama karkarinayaan ama sidiisa ku cunayaan ama waxyaabo kale ku sameysanayaan aan ku arkay. laakiin ma arkin casiir zabiib oo moolgareysan oo si toos ah loo gado. casiirka zabiibka wuxuu si fiican kuugu caawinayaa xanuunka jirka. yabuuska bismillah aad iyo aad ugu fiican yahay yabuuska waa kala ridayaa ilaha yaryar ee dhabarka xiran waxaa idin sheegayba antioxidant inuu yahay. oxidantkaas markaad iska dishid calooshaada ka nadiifisid waxa waa ilihii dhammaan ee xirxirtay xididadii ee xirxirtay dhan zabiibka waa furfuraya. wuxuuna kuu sahlayaa inaad si dabiici ah saxaradii kaaga soo baxdo adigoona ku dhibtoonin. waa marka hore. marka labaad wuxuu siinayaa dhiigga oxygen fiican uu siiyaa dhiigga because marka hore waxa waaye waa zabiib waa macaan dabcan qaarna dhanaan waa ku jira. marka faa'iidadiisa way badan tahay yani aad iyo aad ay u badan tahay. kaliya aniga waxaan kugu soo koobayaa in aad casiir aad ka samaysatid aad cabtid si aaba u aragtidbo wuxuu gala iyo wuxuu gudaba life inaad ku aragtid aad iska hor imaatiin aan jeclahay. laakiin aniga ahaanteeda waxaan aad iyo aad u jeclaa aad iyo aadna u caba rabadaanka u cabaa waqtiga dehydrationka badan jirka oo ka jiro oo jirka uu maxaa dhahay maalintii oo dhan biilaan uu yahay. habeenkii hal bakeeri oo zabiib ee markaa cabo way ugu filan tahay ilaa iyo maalinka kaleeto xitaa biyo badan inay caawo ma u baahno. waxyaabo badan oo mashaakil badan oo maxaan ku dhahaa jirkayga ahna ma igu soo baxo calashaan barakada rabadaanka horta marka horeeto. marka labaadne dadaalka naftaada because alwiqaayatu khayru min alcilaaj sida hor loo sheegayba. marka waxa waaye inaan dadaalno waayo nafteena ku dadaalno feerasta bacdeen qadarka ilaahay aan aamino. waxaa idin tusaa sida loo sameynayo zabiibka dry oo ku umaada horta waa anti maxaa la dhahay waa full of sun. waa marka sidaan yahay qoraxda ka buuxdo maxaan ku dhahaa waa diyaarsan yahay. sidaan baa lagu cuni karaa على طول لو عني كره. لكن waxaan ku dadaaleyna inaan biyo ku korshubno علشان si oo ratab noogu noqdo sidaas oo kaleeto. markaan biyaha aan ku korshubno ilaahay quraankiisa wuxuu ku jacalnaa min almaa'i kulli shay hayy. markaan biyaha ku shubno oon ku dhigno xoogaa wuu kala baxbaxaya wuu ratib uu noqonaa wuu jilcaya wuu soo noolaanaya nolosha marad ku soo noqonaya. so step 1
waxaan sameyneynaa qalaadadeena basiidka ahayd ku shubaneynaa waa ujeedinsa soo shubaya wakaas waa soo diyaarinay qalaadada ku soo shubnay waa shiideyna waa soo shiideyna waa soo laabaneynaa geedkan aan ku miireynaa laano kan kale ilaha yaryar ma ka baxaayo qashinkiisa ma baxaayo laana ilmaha rabnaa inaan siino qashinkida geedkan aan ku miireynaa ama ku nadiifineynaa soo jeedii saas oo kala miireysa qashinkadan ilaa uu ka wada baxaado wax yar ah ka soo baxaayo waxaas yarna waa iska daadinaysaa talaajada gelinayna waa soo qaboojinayna waa soo laabanayna insha Allah ما شاء الله عسيركين زبيب كمان تا ugu talagalnay xalqada maanta waa kaas diyaar u yahay caafimaadku caba insha Allah فيتامين aad u sareeyo leeyahay fitamiinka qoraxda aan la helin inta badan wadamada adduunka aan laga helin qaar ay qorax u soo bixinaa bijirta marka zabiibka fitamiinka qoraxda aad ka heli lahayd waa ku dhex jira wax waay qoraxdii qalajinaysa marka horeeto marka dambeetana waa ku raagaya fitamiinka qoraxda laga helo dhex galaya marka saa darteed markay cabtid waxa dareemaysaa kuleyl dareemaysaa yani aad kuleyl fiican dareemaysaa oo jirka kululeynayo oo yani haday dhaxan ku hayso dhaxantu ka kacaysa lugaha haday ku balbalayaan caga balbalka waa ku qaboobayaan haday qandho culus ku hayso waa ku deynaysaa buk xanuunkana anigaaba isku daaweeyay dad badan oo ilan walaalihii oo kaleeto ciyaalkeyga oo kaleeto food poisonka aad ugu fiican yahay marka cuntada ay ku wareeriso oo cuntada caloosha ka barariso ama ay ku dawaqiso aad ugu fiican yahay isla markii digestion oo sameeyna waa dejinaya dheefshiidka ka shaqaaleysiinaya marka insha Allah caafimaad ku caba anagana ilaahay hanoo daaweeyo inta aan haysano muslimna ilaahay ha siiyo waa bahdi dhaxal hooyo oo idin qalbiga idinka salaameynay hanaga ilaawina like share iyo subscribe iyo comment. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.